garsooraha maxkamadda sare ee maamulka Galmudug Sheekh Maxamed Guuleed oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay howlaha amniga iyo garsoorka Galmudug. Waxa uu garsooruhu sheegay in amniga magaalada Cadaado uusan sidii hore ahayn, isagoona sheegay in dhac iyo kufsi aan hore loo aqoonin ay imika deegaanka ku soo bateen. Waxa jira caqabado soo kordhay xilligan mar waa abaar watan og yahay ummadii qayl ku jirtaa marna waa amniga oo aan maaragtay sidii ayaantan soo xumaaday una baahan wax ka qabasho marna waa maamul wanaaga iyo hadii sida loogu baahnaa oo aan maanta lahayn marka waxaan sheegayaa hadda waxa jira soo kordhay culays iyo caqabado amni darrada ah xalay waa maqlaysay ama waa arkayseen ummaddu gabar yar oo 7 jir oo mid lagu googooyay waxa ka horeeyay hameen kasta torrey iyo guryagal iyo xabad la isku dhifto intoo waa jiraan dalka dawladda Galmudug maamulkii loo dhisay ummadda loo dhisay xoogaa laftiisu waati oo isqabteen madaxweynihii iyo baarlamaankii isqabadka dhibaato ka timid faa'iido kama imaan waayo si la isu qabtaa waa sahal si wixii xoogaa murankii dhacal loo daweeyaa waa dhib maanta waxaan joognaa inaan madaxweyne aysan lahayn dad matalayaana uusan cadaala joogin ama Galmudug uusan joogin madaxweyne matalaya inaan arag. dhanka kale Sheekh Maxamed Guuleed ayaa waxa uu sheegay in ay xiran yihiin xafiisyada garsoorka iyo saldhigga booliska waxa uu hadalkiisa raaciyay in ay jiraan maxaabiis aan wali la xukumin oo ku jira saldhigga ciidanka booliska degmada Cadaado waxa uu taas sabab uga dhigay in askar ka tirsan ciidanka booliska ay diideen in la maxkamadeeyo maxaabiistan kuwaasi oo ka cabanaya in aysan wax xuquuq ah helin oo dhanka mushaaraadka ah tan iyo markii la dhisay maamulka Galmudug. garsoorku wuxuu sugaa horta cadaaladdu waa isku xiran tahay saldhigna waxa uu ah booliska haddii boolis la waayo garsoorna ma jiro cadaaladina ma jirto dibku ayagu ku soo dhacaya waxa waxaystaana waa iyaga waa saldhig oo wiilal yar joogaan iyagu waxay sabab ka dhigeen inaysan sidii Galmudug loo dhisay wax mushaara helin oo la siin oo la ictiraafin sheegayaan hadday gar daran yihiin markii la xisaabtama la gaari doona hadday gar leeyihiin markii la xisaabtama la gaari doona waxa jira dambiyo oo qatar ah oo loo xiran yahay waxa jira gacan ku dhiigle waxa jira qaadduc dariiq dambiyadii oo maaragtay la yiraahdo ciqaabta waa badan yihiin waa jiraan kuwaasi waa isla ognahay anigu waxaan saaka dalbaya anoo ka hadlaya garsoorka afkiisa ku hadlaya in la xisaabtamo dawladdan xisaabtamin la joogto meesha Galmudug ma xisaabtanto hadda ka horna ma xisaabtamin la xisaabtamo haddaan la xisaabtamin dawlad la'aan la yiraahdo mar waxaan leeyahay soo hormariya ma la xisaabtamo haddii la rabo aniga laga bilaabo aniga wax socon kara ma jiraan haddaan amnigu sugnayn waa hadalku waa kaas. Xasan Maxamed Ismaan Somali News TV magaalada Cadaado.